fanaanka farxan yar ayaa jawaab degdeg ka soo bixiyay heestii karbaashkeeda soo qaaday fanaanada rasmireys ahayd astaghfirullah intaan ku jeclaa. farxan yar ayaa bartiisa Facebook wuxuu soo dhigay sawirka marwadiisa cusub ee samsam iyo sidoo kale ereyo dareen leh, waxaana heeriyada uu kusoo qoray sawirkaasi ka mid ahaa naftaydu naf bay rabtaa, naftooduna naf kale ay rabtaa, ni wadnaha nawr baa ku yaala. heestii ku luqeysay fanaanada farxii fiskay sanado ka hor soo baxday. farxan yar ayaa jawaabtan wuxuu kasoo bixiyay heestii rasmireys soo qaaday isbuucan ahayd hees baraha bulshada si weyn u qabsatay islamarkaasna si xun loogu karbaashay. farxan yar ereyada heestaasna ay ka mid ahayd erey Soomaalida si weyn u qabsatay islamarkaasna baraha bulshada si weyn loogu faaqiday oo ahaa astaghfirullah intaan ku jeclaa. farxan iyo rasmi oo ahaa dad isqabi islamarkaasna xiriirkooda iyo sidoo kale muuqaalo dareen ka turjumay kusoo bandhigi jiray barahooda bulshada gaar ahaan YouTube-ka ayaa waxaa soo kala dhexgalay khilaaf aad u weyn, inkastoo ugu dambeyntii rasmireys si rasmi ah u cadeysay in ay ayada iyo farxan ay kala tageen. ilaa hadda jawaab rasmi ah lagama hayo fanaanka farxan yar iyo sidoo kale waxyaalaha ay isku dagaaleen labadan qof. hase ahaatee waxaa la soo wariyay in fanaanka farxan yar uu xiriir kale la waday gabar lagu magacaabo samsam, taasna ay dhalisay in ay ugu dambeyntii ogaatay fanaanada rasmireys inuu farxan yar xiriir jacayl oo kale uu leeyahay islamarkaasna ayada uusan wax dana ka lahayn, waxaana si degdeg ah rasmireys u dalbatay inuu furo. hase ahaatee farxan yar ayaa arrintaasi ka naxay, wuxuuna dhowr mar isku dayay in uu ka raaligeliyo. hase ahaatee rasmi ayaa la sheegay inay go'aankaasi aysan marnaba qaadan. ugu dambeyntiina waxay go'aansatay in iskaga soo tagto magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, waxayna intaasi kadib usoo camabaxday magaaladii ay ku aqal-galeen islamarkaasna sida weyn ugu soo dhaweysay farxan yar horena ugu raaxaysan jirtay fanaanadan fankeedana kusoo hormarisay ee caasimadda waddanka Kenya ee Nairobi, halkaas ay kusoo dhaweeyeen saaxiibo fara badan ay ku leedahay halkaasi iyo sidoo kale taageerayaal taageera fanaanadan daada yar ee rasmireys. rasmi ayaa markii halkaas tagtay waxay go'aansatay in hees u soo qaado karbaash ah fanaanka farxan yar islamarkaasna bulshada Soomaalida u sheegto in ay ka xun tahay waayihii ay la soo qaadatay fanaanka farxan yar. rasmi iyo farxan ayaa mar waxay kusoo bandhigeen bartooda YouTube-ka in ay rasmireys ay leedahay uur islamarkaasna ay bulshada Soomaaliyeed ogaadaan. muuqaalada noocaas oo kale waxaa kusoo bandhigay dadka xiriirka jacayl bulshada ka Soomaaliyeed la wadaaga islamarkaasna baraha bulshada gaar ahaan YouTube kusoo bandhiga. ugu dambeyntii daawadayaal rasmi ayaa waxaa waagaasi ay sheegeen inay farxan uur u leedahay. anaga ma xaqiijin karno uurkaas iyo meeshuu ku caano shubtay, hase ahaatee waxaan xaqiijin karnaa inay kala tageen rasmi iyo farxan. ugu dambeyntii inay hees karbaash ay soo qaaday fanaanada, waxayna markii halkaasi ay tagtay ay abwaan ka dalbatay in ay u sameeyo hees karbaash ah islamarkaasna jacaylkii hore ay ka subxaanaleysanayso. ereyada heestaas oo baraha bulshada si weyn u qabsaday ayaa waxaa ka mid ahaa astaghfirullah intaan ku jeclaa, taasoo bulsho Soomaaliyeed aad u fara badan ay ka falceliyeen. waxaana heestaani ay qabsatay saacado gudahood baraha bulshada, gaar ahaan aaladda sida weyn heesaha loogu kala kiciyo ee TikTok oo sanadihii ugu dambeeyay caan noqday islamarkaasna bulsho fara badan ay halkaas u wareegeen. ayaa ugu dambeyntii fanaanada rasmireys waxa ay go'aansatay in ay heestaasi kusoo bandhigto barteeda YouTube-ka, waxaana bulsho fara badan oo taageersanaa ayada aad uga falceliyeen. rasmireys ayaa intaasi kadib markii heestaas soo baxday aanan jawaab kale ka soo bixin. hase ahaatee fanaanka farxan yar ayaa arrintani waxay ku noqotay bur madow taas oo la gaarsiiyey, waxaana fanaanka u qoonsaday inuu asagna bartiisa Facebook qoraal iyo sidoo kale sawir dareen leh kusoo bandhigo, wuxuuna sawirkaasi kusoo dul qoray naftaydu naf bay rabtaa, naftuna naf kale rabtaa, wadnaha nawr baa ku yaal iyo erey kale. iyo sidoo kale wuxuu kusoo dul qoray heestii ka raystay bukaanadii uu qaaday fanaanka nimcaan hilaac uu la jeeday inuu asagana ka raystay islamarkaasna uu nolol kale oo ka fiican uu helay fanaanada rasmireys oo muddo ka badan hal sano ay isqabeen labadan qof. farxan ayaa waxa uu qoraalkaas kusoo dul qoray sidoo kale la socday sawir gabar la sheegay in magaceeda la dhaho samsam, islamarkaasna ay ahayd gabadhii rasmireys iyo farxan yar kala tagkooda ka dambeysay. waa sida la sheegay gabadhaas oo magaceeda la sheegay in lagu magacaabo samsam islamarkaasna xiriir jacayl oo waaliya kala dhaxeeyo fanaanka farxan yar ayaa waxa uu halkaas ku soo bandhigay sawirkeeda, wuxuuna bulshada Soomaaliyeed dareensiinayaa sawirkaasi inuu xiriir jacayl kala dhaxeeyo gabadhan daad yar ee lagu magacaabo samsam islamarkaasna ah gabar reer Hargeysa oo ay isku dhaqan iyo sidoo kale isku af yihiin. rasmireys ayadan waxaan sugnaa waa soo bandhigitaanka saygeeda cusub ee lagu magacaabo
jamaal dayax oo saacadihii ugu dambeeyay ama maalmihii ugu dambeeyay asagana baraha bulshada lagu faaqidayay. Rasmi iyo Farxaan kala tagooda ayaa baraha bulshada ka dhex abuuray hadal aad u fara badan. Ugu dambeyntii Rasmi iyo Farxaan waxay go'aansadeen inay safaaradaha kala qaataan. waan arki doonaa wixii ka soo kordha wararkaasi. haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar channelka gambaleelkana furo si aad u hesho macluumaadyo ugu horreeyaan bartaan soo geyno. sidoo kale muuqaalkan leega waxyaalaha ay isku dagaaleen labadan qof. hase ahaatee waxaa lasoo wariyey in fanaanka Farxaan Yare uu xiriir kale la waday gabar lagu magacaabo Samsam, taasna ay dhalisay in ay ugu dambeyntii ogaatay fanaanada Rasmi inuu Farxaan Yare xiriir jacayl oo kale uu leeyahay, isla markaasna ayada uusan wax dana ka lahayn, waxaana si degdeg ah Rasmi u dalbatay inuu furo. hase ahaatee Farxaan Yare ayaa arrintaasi ka naxay, wuxuuna dhowr mar isku dayay inuu ka raaligeliyo. hase ahaatee Rasmi ayaa la sheegay inay go'aankaasi aysan marnaba qaadan. ugu dambeyntiina waxay go'aansatay in iskaga soo tagto magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland, waxayna intaasi kadib usoo camabaxdeen magaaladii ay ku aqalgaleen, isla markaasna sida weyn ugu soo dhaweysay Farxaan Yare, horena ugu raaxaysan jirtay fanaanadan fankeedana kusoo horumarisay ee caasimadda waddanka Kenya ee Nairobi, halkaasi ay kusoo dhaweeyeen saaxiibo fara badan ay ku leedahay halkaasi, iyo sidoo kale taageera fanaanadan da'da yar ee Rasmi ayaa markii halkaas tagtay waxay go'aansatay in hees usoo qaado karbaash ah fanaanka Farxaan Yare, isla markaasna bulshada Soomaalida u sheegto in ay ka xun tahay waayihii ay la soo qaadatay fanaanka Farxaan Yare. Rasmi iyo Farxaan ayaa mar waxay kusoo bandhigeen bartooda YouTube-ka in ay Rasmi ay leedahay uur, isla markaasna ay bulshada Soomaaliyeed ogaadaan. muuqaalada noocaas oo kale waxaa kusoo bandhigay dadka xiriirka jacayl bulshada ka Soomaaliyeed la wadaaga, isla markaasna baraha bulshada gaar ahaan YouTube kusoo bandhiga. ugu dambeyntii daawadayaal Rasmi ayaa waxaa waagaasi ay sheegeen inay Farxaan uur u leedahay. anaga ma xaqiijin karno uurkaas iyo meeshuu ku caana shubtay, hase ahaatee waxaan xaqiijin karnaa inay kala tageen Rasmi iyo Farxaan. ugu dambeyntiina hees karbaash ay soo qaaday fanaanada, waxayna markii halkaasi ay tagtay ay abwaan ka dalbatay in ay u sameeyo hees karbaash ah, isla markaasna jacaylkii hore ay ka soxaanaysanayso. erayada heestaas oo baraha bulshada si weyn u qabsaday ayaa waxaa ka mid ahaa istaghfirullah intaan ku jeclaa, taasoo bulshada Soomaaliyeed aad u fara badan ay ka falceliyeen. waxaana heestaani ay qabsatay saacado gudahood baraha bulshada, gaar ahaan aaladda sida weyn heesaha loogu kala kiciyo ee TikTok oo sanadihii ugu dambeeyay caan noqday, isla markaasna bulsho fara badan ay halkaas u wareegeen. ayaa ugu dambeyntii fanaanada Rasmi waxa ay go'aansatay in ay heestaasi kusoo bandhigto barteeda YouTube-ka, waxaana bulsho fara badan oo taageersanaa ayay aad uga falceliyeen. Rasmi ayaa intaasi kadib markii heestaas soo baxday aanan jawaab kale ka soo bixin. hase ahaatee fanaanka Farxaan Yare ayaa arrintani waxay ku noqotay bur madow, taas oo la gaarsiiyey. waxaana fanaanka u go'aansaday inuu asagana bartiisa Facebook qoraal iyo sidoo kale sawir dareen lagu kusoo bandhigo, wuxuuna sawirkaasi kusoo dul qoray naftaydu naf bay rabtaa, nafta